dhowaan soo dhowdahay xilliga doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ayaa musharaxiinta qaarkood waxa ay ku jiraan diyaargarowga ugu dambeeyay waliba ololaha doorashada ay ugu jiraan ku guuleysiga kursiga xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. Waraydo lagu kalsoonay ayaana warbaahinta Ogaal Media u sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu dhigaysa Jubbaland Axmed Madoobe kala hadlay in uu ka shaqeeyo sidii doorashada Jubbaland ay uga soo bixi lahaayeen xildhibaano lagu kalsoonaan yahay oo heli karo cod maadaama uu yahay musharax aan weli isagu si toosa isku shaacin. Deni ayaa la sheegay marka hore taageeradu uu ka raadinayo ismaamulada beeshiisa sida Jubbaland iyo kuwa Kenya, balse waxaa la sheegay in Axmed Madoobe uu ka dalbaday inuu meesha ka saaro xildhibaanada hadda jira ee aan lagu kalsoonaan karin isla markaasna uu keeno kuwa dhig cusub oo lagu kalsoonaan yahay. Sidoo kale deegaanada Puntland ayaa la sheegay inuu Saciid Deni ku dadaalayo sidii uu u keeni lahaa xildhibaano u daacad ah. Deni ayaana la rumaysan yahay inuu yahay musharax madaxweyne, waxaana la filayaa inuu ku dhawaaqo marka ay dhacdo doorashada baarlamaanka kadib oo uu markaasi ogaan karo in uu xilkani isku sharixi karo ama in kale. Deni ayaa dib u dhiganaya ku dhawaaqista musharaxnimada sababa waxayna su'aalo gelin kartaa dhexdhexaadnimada doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka ee uu maamulkiisu isagu qabanayo. Qaar ka mid ah xildhibaanada hadda waqtigooda uu dhammaaday ee deegaan doorashadoodu yihiin Puntland ayaa arintani walaac xoogani ka muujiyay, iyadoo ugu horeeyay wasiirka qorsheynta Jamaal oo isagu bartiisa Twitterka si cad ugu sheegay in madaxweyne Deni uu yahay musharax xilka madaxweynaha Soomaaliya u taagan, balse uu dib u dhiganayo ku dhawaaqistiisa ku aadan musharaxnimada maadaama uu rabo inuu maamulo doorashada golaha shacabka iyo midda senatarada ee ka dhaceysa deegaanada Puntland. Deni ayaa haysto taageerada Jubbaland iyo kuwa maamulkiisa, waxayna taasi gelinaysaa rajo weyn, wuxuuna rumaysan yahay inuu si fudud u soo gudbi karo wareegga koowaad ee doorashada oo ah kan ugu adag. Tartanka Soomaaliya ee doorashada ayaa sanadkan u muuqda in uu leeyahay xiise gaar ah, waxaana isku haya musharaxiin miisaan culus leh, mana cidda weli ka horeysa ama ku guuleysan doonta xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. Deni oo isagu 4 sano ka hor isku sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya inta uusan noqonin madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa ku haray wareeggii koowaad isagoo helay oo keliya 18 cod. Waxa uu markani uu doonayaa inuu dhigo taariikh cusub isla markaasna uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee Soomaaliya, inkastoo ay la tartami doonaan siyaasiyiin miisaan culus leh oo ay ka mid yihiin 3 madaxweyne hore oo ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxaa sidoo kale rumaysan yahay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre isaguna uu sanadkani uu ka soo gudbi karo wareegga labaad ama wareegga koowaad, iyadoona la sheegay inuu raadinayo kalsoonida codadka xildhibaanada cusub ee lasoo dooran doono. waxa ay xildhibaanada uu ku tashanayo ugu weyn deegaanada Galmudug oo laga soo doorto xildhibaano ku beel ah isaga, iyo weliba sidoo kale maamul goboleedka Hirshabelle oo isagu sidoo kale xildhibaano dhowr ah oo taageersan uu ka heli karo. Balse Villa Soomaaliya ayaa sanadkan wado qorshayaal ay ku doonayso in ugu yaraan 100 xildhibaan codadkooda ay ku tashan karto si loo helo inta aanba la gaarinba doorashada xildhibaanada, iyadoona la diyaariyey sidaan xogta ku helino musharaxiin xildhibaano cusub iyo kuwa hadda waqtiga uu ka dhammaaday, kuwaas oo gebi ahaantoodba taageero buuxda u ah Villa Soomaaliya oo mar labaad la doonayo in madaxweyne Farmaajo uu dib ugu soo laabto. xildhibaanadu sida aadka ugu tashanaya madaxweyne Farmaajo doorashada xildhibaanada ka hor waxaa ugu badan xildhibaanada laga soo dooran doono gobolka Gedo, gaar ahaan Garbaharey, xildhibaanada iyagana lagu dooran doono magaalada Muqdisho ee gobolada waqooyi ee Somaliland ee 17 kursi ah, xildhibaanada qaarkood oo lagu dooran doono Galmudug, waxaana la sheegayaa in inta ugu badan xildhibaanadu uu ku tashanayeen madaxweyne Farmaajo yihiin
labada maamul goboleed ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. waxaana xogtan helaynaa ay sheegaysaa in qorshayaasha uu degay madaxweyne Farmaajo ee ku aadan sidii uu heli lahaa xildhibaano gaaraya 100 xildhibaan ka hor intaanba la gaarin ololaha doorashada ee madaxtinimada ee Soomaaliya ay yihiin baa la yiri kuwa aad u soo taraya. waxayna u badan tahay inuu madaxweyne Farmaajo heli karo kalsoonida xildhibaano gaaraya 100 isla markaasna uu ka gudbi doono wareegga koowaad ee doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. lama oga siyaasiga kale ama musharaxa kale ee madaxweyne Farmaajo ku cariirin doono doorashada Soomaaliya wareegga labaad, iyadoona inta badan doorashooyinkii hore uga dhacay Soomaaliya looga bartay in madaxweynaha waqti xileedka markaas uu ka dhamaado doorashada uu ka gudbo wareegga koowaad, balse wareeggalayada labaad iyo saddexaad ee noqdaan kuwa looga shubto xildhibaanada codadkooda, maadaama inta badan ay saameyn ku yeeshaan hadallada ah isbedel doon oo markaasi loogu shubo musharaxa ugu dambeeya ee la gaaro wareegga kama dambaysta ah ee lagu kala baxo. waxaana laga yaabaa in madaxweyne Farmaajo wareegga ugu dambeeya laga qaado codadka, maadaama ereyada isbedel doonka ah ay saameyn weyn ku yeesheen doorashooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya.